بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan dhigaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo cashirkii shanaad. marka insha allah wuxuu ku saabsan yahay cashirkan qof macnaha taleefon soo wacayo oo taleefonkiina macnaha looga jawaabayo. marka insha allah kusoo dhawaada. making and receiving a call waa taleefon in qof laga soo waco macnaheeda. dialogue 1 waa wadahadalkii koowaad. waxaa markaa wada hadlayo xaawo iyo khadiijo, waxaana qabanayo qof kale oo saddexaad taleefonka. kadib ayaa khadiijo taleefonka ay dib u qabanaysaa. marka aan isla soconna hadduu la yidhaahdo. xaawa waxaa dhahday marka hello, can I speak to khadiija? ma la hadli karaa khadiijo? hello, haye, can I speak to khadiija? khadiija ma la hadli karaa? qofkii taleefonka ka qabtay ayaa waxaa dhahay please hold on, fadlan qadka ku jir. please waa fadlan, hold on na waxaa waaye qadka ku jir. qofka markii taleefonka kusoo waco oo qof kale in loo dhiibo la rabo, qadka ku jir markaa leedahay waxaa waaye hold on. khadiija markaa taleefonka qabsatay waxay dhahday hello, this is khadiija. qofkani waa khadiija. who is calling yaa isoo wacay. xaawa waxaa ku jawaabtay hi khadiija, it is xaawa, waa xaawo. I'm calling to ask you, waxaan ku soo wacay inaan ku weydiiyo if you would like to see, haddii aan isku arki karno the beach, muxuu ahaa xeebta tomorrow, berito. khadiija ka jawaabta waxay dhahday I would be glad to, aadaan ugu faraxsanaan lahaa, waan ku faraxsanahay ayay dhahday. xaawo marka waxay ku jawaabtay great, waa hagaag. I will meet you outside the home at 2 p.m. waxaan ku wada kulmi doonaa gurigaaga hortiisa 8 duhurnimo. khadiija marka waxay ku jawaabtay it is a deal, waa hagaag, waan ogolahay. it is a deal waxaa waaye qofka markii wax la weydiiyo uu ku qanacsan yahay ayuu wuxuu leeyahay it is a deal, arrinkaas waa ogolahay, waa ku qanacsanahay. marka great waa hagaag, waa qaybtaas korana. meet waa kulmid, outside waa banaanka, the home waa guriga, at 2 p.m. ne waxaa waaye 2 duhurnimo. waxaan u gudbaynaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo cashirka kaleento, qaybta kaleenta u gudbaynaa, aan isla soconno. dialogue 2 waa wadahadalkii labaad. waa 2 qofood oo taleefon iska soo wacayo. waxaan tusaale usoo qaatay marka saciid iyo fanax. saciid ayaa waxaa dhahay hello, good morning fanax. haye, subax wanaagsan fanax. fanaxa ku jawaabay wuxuu dhahay hello, who is this? yaa isoo wacayo, waa kuma, waa kuma ayuu dhahay. saciid marka wuxuu dhahay it is saciid, waa saciid. I'm so sorry, waxaan aad ugu xumahay for calling so early, in aan ku soo waco waqti arooroo hore, inaan ku soo waco aadaan ugu xumahay. fanax marka wuxuu ugu jawaabay it is okay, wax dhib ma jiro, what's up, maxaa daran. saciida wuxuu dhahay did you get my note? fariintayda ma ku soo gaartay ama ma heshay? fanax wuxuu ugu jawaabay yes, I just got it, haddaan helay. I will think it over, waan ka fikirayaa, and call you back, waana ku soo wacayaa, dibaan kuu soo wacayaa. fariinta aad ii soo dirtay waan akhrinayaa, waana ka fikirayaa, kadibaana wuu soo celinaya wixii warbixina. saciid marka wuxuu ugu jawaabay fine, waa hagaag, see you later, is arag dambe. fanax wuxuu dhahay marka goodbye. meesha marka waa lagu wada hadlay, arrinkaasne waa laisku afgartay. think it over waxaa waaye ka fikirid
call you back. I will call you back qofka haddaad dhahdidna dib aan kusoo wici doonaa waaye. Call you back, call back waxaa waa qofka in dib loo waco. I just got it haddaad dhahdidna got it haddaan helay waa. Macnaha waan helay waa. I just got it haddaan helay waa. Note waxaa la dhahaa wax fariin ah ama muxuu ahaa qoraal qofka markuu meel ku calaamadaysto kalento note samayso ama wax ku qoro la dhahaa. ayadan taas saas waaye. WhatsApp qofka hadduu ku dhahane maxaa daran waaye, maxaa cusub, saasoo kalento waa kaasaa. Early waxaa waaye aroor hore ama waqti hore qofka markii early ay tahay saas waaye. Sorry waan ka xumahay waaye. I'm so sorry aadaan uga xumahay ama waan ka xumahay qof markii leedahay I'm so sorry aa leedahay. Morning waa subax. Good morning qofka hadduu ku dhahane waa subax wanaagsan. marka waxaan ku sii soconaynaa hadduu la yiraahdo qaybta kalente ee casharkeenna aan soo soconno. qaybta saddexaad waxaa waaye marka asking for direction, in la weydiiyo jaho qof, macnaha qof adoo kaba soo qabo aadan meel uqoon inaad timid meel inaad jaha qof ijahay aad dhahdid ayaa macnaha ka wadnaa meeshaan. marka waa asking for a direction, in qof jaha iyo tilmaan la dhaho oo tilmaan qofka wax laga qaato ayaa la dhahaa. marka waxaa meeshaan wada hadli doona marka qof customer ah oo macaamiil ah iyo qof employee ah oo shaqaale ah. labadaas qofooda wada hadli doono. marka qofka employee-ga ah oo shaqaalaha wuxuu ka shaqeeyaa isbitaal. qofka kalentana waa qof macaamiil ah oo isbitaalka yimid oo patient ah oo loo qabanayo. marka arrin yar ay marka isweydaarsanayaan aan ka wada hadli doonaa. dhegeysi wacan. wuxuu dhahay excuse me, iga raali noqo, can you direct me, miigu hagi kartaa the pharmacy department, qaybta farmasiga miigu hagi kartaa oo ma ii tilmaami kartaa. marka waxaa jirto qofka markaad excuse me aad leedahay oo kalento iga raali ahaw, qofka markaa raali gelinaysan excuse me waa la dhahaa. waxaa kalentoo la dhahaa marka qofka markaad soo jeedinaysid oo rabtid inaad wax weydiisatid excuse me aa la dhahaa. kadib qofka wuu fahmaa ina adiga danka leedahay uu ku soo jeesanaa. marka excuse me haddaa qofka dhahdid laba maadamid waaye, inaad macnaha xoogaa qalad ka gashay oo iga raali lahaw aad leedahay, iyo excuse me inaad qofka soo jeedinaysid oo inaad la hadis aad rabtid uu ku soo jeesanaa. qofka markaa shaqaalihiya waxau dhahay it is on the 7th floor, waxaa waaye meesha aad u socotid waxaa waaye dabaqa 7. when you get off the elevator, markii aad ka degtid muxuu ahaa mataqaanaa aad ka degtid wiishka, you will see waxaad arki doontaa it on your left, dhinacaada bidaxda ayaad waxaad ka arki doontaa meesha aad u socotid oo ah farmashiga, qaybta farmashiga. marka qaybta hore waxaan kusoo xus waxay tahay pharmacy department. markaan department aan ku dhahayo waa qaybtaasna waxaa keenayo meesha isbitaalka oo kalenta wuxuu leeyahay qaybo badan uu leeyahay. qayb qaliin uu leeyahay, qayb dhakhtarku qaabil uu leeyahay, qayb oo patientka la seexiyo leeyahay. sidaas daraadeed marka department markay qayb soo gasho meeshaas waa building dhan oo guud oo wax walba lagu qabto. marka qaybta marka qofka uu raadina waxay tahay qaybta farmashiga, wuxuu kasoo dhammaaday dhinaca dhakhtarka oo kalento. marka qofka customerka marka intiis loo tilmaamay wuxuu dhahay su-aal uu ku soo celiyey qofkii oo mataqaanaa shaqaalaha ah oo meesha joogay. wuxuu dhahay and where is the elevator, xagee wiish ku yaallaa un raaca oon ka helaa. kabacdi wiishkii marka ninkii marka muxuu ahaa oo macaamiilka ma ahana kii kalento shaqaalaha wuxuu dhahay just go straight ahead, hortaada u soco, you will find it, waadna helaysaa. horidaas hore u soco, hortaada hore markaa u socotid wiishka meeshaasuu ku yaallaa waad helaysaa. qofkii macaamilka marka wuxuu dhahay thank you, waa mahadsan tahay. qofka kalento marka muxuu ahaa shaqaalaha ahaa markii loo mahad celiyey asigana wuxuu dhahay you are welcome, soo dhawaaw, waa mahadsantaha markii la dhahay adaa mudan u dhahay. marka waxaan u gudbaynaa qaybta kalente ee aan isla soconno. qaybtan ayadane
waa sidii tilmaam oo kaleento tilmaantii ka mid tahay laakiin tilmaantii tii hore isbitaal ahayd laakiin tan waxa waaye waxay noqonaysaa qof oo cusub oo masaafur ah iyo qof kaleento oo deegaanka ah oo iswareysanayo travel haddii lagu dhahane waa safar marka travel kaligeed markay tahay waa safar traveler hadday noqotane waxay noqonaysaa qofkii masaafurka ahay naftigiisa noqonaysaa marka qofkii masaafurka wuxuu dhahay excuse me iga raali noqo could you tell me ma ii sheegi kartaa how to get sidii aan ku heli lahaa the railway station bosteejada tareenka laga raaco qofka marka gudaha oo localka ahaa ee mataqaana meesha aqoonta u lahaa ee la weydiinaya wuxuu dhahay an left dhinac bidax u leex ayuu dhahay at the first light nalka kugu soo horeed arkaysid bidax u leexo meeshaad ka helaysaa qofkii masaafirku marka wuxuu dhahay will it take long ma waqti dheer qaadanaysaa to get there ina halkaas aan gaaro meeshaas macnaha waqti dheer ma ugu qaadanaysaa ina aan gaaro uu dhahay waxaa loogu jawaabay marka you can walk if you are not in hurry haddaadan degdeg qabin waad u lugeyn kartaa haddii kaleentana wuxuu dhahay or take the number 10 bus haddii kaleentana oo aad degdegsan tahayne lambarka baska 10 oo macnaha lambar 10 raac marka waxa waaye it is not far haddii lagu dhaho ma fogo waaye you can walk waad u dhaqaaqi kartaa ama waad u lugeyn kartaana waa qaybta kale waaye you are not in hurry haddii lagu dhahane macnaha waxaa waaye in hurry waxaa laga wadaa haddaadan degdeg qabin marka saas daraaddeed marka waxaa la dhahay no it is not far maya ma fogo you can walk waa u lugeyn kartaa if you are not in hurry haddaadan degdeg qabin oo aad hadda aadan dhaqsi qof meel ugu degdegsan aadan ahayn lug waa ku tegi kartaa or haddii kalentana take the number 10 bus haddii kalentana lambar 10 baska ah raac asaa ku geynaayo qofkii marka masaafirku wuxuu dhahay intaas markii loo sheegay wuxuu dhahay thank you waad mahadsan tahay qof kalentana wuxuu dhahay don't mention it wax dhib ma leh don't mention it qofka marka ku dhahay waxay tahay macnaha qofkaas aniga wixii mas'uuliyad ahaan isaarnaan kuu sheego waaye waxba ha iiga mahad celin wax caadi ah macnaha oo ku kaalmeynaya marka dhis koranto don't mention it waxba ha soo qaadin waa culays ma leh marka leedo koranto way meeshii awal koranto ka ahayd thank you marka qofku dhaho you are welcome marka meesha ka dhigi lahayd meesha haddaad dhahdo don't mention it waxba ha soo qaadin wax dhib ma leh waa don't mention it waa marka sidaasaad macnaha ula macaamilaysaa waxa waa marka ereyada kore haddaan kuu soo qaado excuse me macnaheeda waxay tahay waataan hore idinkuu sheegay iga raalli ahaw qof markaa leedahay ama qof kaa sii jeedo kale inaad wax weydiisid markaa rabtid oo inuu kuu soo jeest aad rabtid excuse me aad leedahay tellna waa sheegid could you tell me ma ii sheegi kartaa waa meesha kore railway station waxaa la dhahaa bosteejada tareenka ayaa la dhahaa oo tareenka laga raaco tan lefty ereygan kalenta lefty waxa waaye waa bidix tan u leexo ama ka leexo markaa leedahay tan left qof markaa tirinaysa saasoo kalenta leedahay tan left tan right midig u leexo bidix u leexo markaa leedahay okay it will take long macnaha dherer intee baaxad waqti intee la eg qaadanaysa markaa rabtid take long kaa loo isticmaalaa okay ereyada kalenta meesha hadda ku cusub waxaa ka mid ah in hurry degdeg waa macnaha hurry degdeg waa marka saas la socda waxaan qiyaasayaa casharka intaas inuu ahay sidaas ay nabadgelyo iyo isbuuc dambe hadduu ilaahay raaco. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.